Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa types of neurons. Types of neurons markii laga hadlayo waxaa loo qaybinayaa horta marka hore waxaa laga fiirinayaa their structure ayaa laga fiirinayaa, marna waxaa laga fiirinayaa their function ahaan ayaa laga fiirinayaa. Markii laga fiirinayo their structure, neuronska waxaa loo qaybiyaa 4 types, 4 nooc ayaa loo qaybinayaa. Neuronska ama nerve cellska markii laga fiirinayo their structure waxaa loo qaybiyaa 4 nooc oo la kala dhaho anaxonic, unipolar, bipolar, multipolar. Afartaas qaybood ayaa loo qaybiyaa. Markii la leeyahay structure-ka laga fiirinayo, structure-ka laga fiirinayo muxuu yahay? Structure-ka laga fiirinayo wuxuu yahay cell body-ga ama soma qaybta loo yaqaano meeqa process ayaa ka soo farcanta. Haddii wax axon uusan lahayn, neuronkaasi waxaa loo yaqaanaa anaxonic ayaa loo yaqaanaa. Haddii cell body-ga oo ka soo farcamo one process means uu ku yaalo off side banaanka uu ku yaalo cell body-ga oo hal processna uu ka soo farcamo waxaa loo yaqaanaa unipolar ayaa loo yaqaanaa. Bipolarna waxaa la yidhahdaa waa markii cell body-ga 2 processes ay ka farcamaan. Midda afraad waxaa la yidhahdaa multipolar. Multipolar waxaa la yidhahdaa waa markuu cell body-ga hal axon iyo more dendrites ay ka kala farcamayaan ayaa loo yaqaanaa multipolar loo yaqaanaa. So marka erayaashan markii laga hadlayo, uni means wuxuu u taagan yahay 1, pi waxay u taagan tahay 2, multina waxay u taagan tahay many ayay u taagan tahay. So marka types of neurons according to their structure markii laga hadlayo waxaan u soo qaybinay 4 qaybood oo kala ah anaxonic, unipolar, bipolar and multipolar ayaan soo qaybinay. Okay, markii laga hadlayo functionally shaqo ahaan markii laga hadlayo neuronska waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood ayaa loo qaybiyaa iyadoo laga fiirinayo directionka ay fariinta u socoto iyadoo laga fiirinayo. 3daasna waxay kala yihiin nooc la dhaho sensory neurons oo loo yaqaano afferent neurons, motor neurons oo loo yaqaano efferent neurons, and iyo relay neuronska oo loo yaqaano connector ama waxaa kaloo loo yaqaanaa intermediate oo loo yaqaanaa amase waxaa kaloo loo yaqaano associative oo loo yaqaanaa ama waxaa kaloo loo yaqaanaa interneurons oo loo yaqaanaa. magacyadaas dhan wuu leeyahay. Okay, sensory neuronska ama afferent neuronska waa neuronska fariimaha ka soo aruuriyo waxa ka dhacay inside and outside of the body, waxayna fariimahaasi u gudbinayaan into the central nervous system oo ah brain and spinal cord-ka. Motor neuronska iyagana waxaa loo yaqaanaa efferent neuronska. These neurons shaqadoodu waxay tahay wax alla wixii fariimaha ayay waxay ka soo qaadayaan from the central nervous system oo ah brain and spinal cord-ka, waxayna keenayaan effector organska ayay keenayaan. Effector organska hadaa maqasho inta badan waxay noqdaan muscleska murqaha oo amase glands qanjiraha ayay fariimaha keenaan. Relay neurons kuwa loo yaqaano ama interneuronska iyagan kaliya waxaa laga helaa brain spinal cord-ka oo ah CNS-ka qaybta oo loo soo gaabiyo central nervous system-ka meesha oo kaliya ayaa laga helaa. These relay neuronska shaqadooda waxa waaye connect one neuron inay ku xiraan to another neuron. maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa receive waxay ka soo qabtaan informationska neuronska kale ayay ka soo qaadaan waxay u soo gudbinayaan to another neuronska kale. For example, markuu sensory-ga ka keeno waxyaabaha dareenka uu ka soo aruuriyay inside and outside of the body wuxuu keenayaa soomaan central nervous system-ka waxaa ka soo qabanayo relay neuron ama interneuronska ayaa ka soo qabanayo. markii loo soo dhiibayo response-ga ama jawaabtii loo soo gudbinayo motor neuron-kana waxaa ku soo xirayo relay neuron ama interneurons-ka ayaa ku soo xirayo. meeshaas marka waxaan ugu gudbaynaa types of neuronska. 2 qaybood aan ka fiirinay types of neuron on their structure iyadoo laga fiirinayo. waxaan u qaybinay 4 qaybood oo kala ah anaxonic, unipolar, bipolar and multipolar. annagoo ka fiirinayno function-kooda bis anagoo u dhigayno neuronska
waxaan u qaybinay functionkooda markaan base uga dhignay 3 qaybood aan u qaybinay oo kala ah sensory neuronska, motor neuronska iyo relay neuronska. Sensory neuronska waxaa la yiraahdaa from sense organs to the central nervous system. Motor neuronska waxaa la yiraahdaa from CNS oo central nervous system ka to the waxay keenaan effector organska oo muscles organs naqanayo. Relay neuronska waxaa waaye connects sensory to motor neuronska ayuu isku xiraa. Okay, intaas waxaan u gudbinaa marka types of neurons. Marka jirka bini'aadinka markii laga hadlayo gaar ahaan systemka nervous systemka wuxuu ka samaysan wax loo yaqaan nerves. haddaad nerves maqasho waxaa laga wadaa dhowr xabo neurons isku xiran oo isku tagay ayaa waxaa loo yaqaanaa nerves loo yaqaanaa. Nerves waxaa la yiraahdaa numerous neurons collected into dhowr xabo neurons oo isu tagay ayaa waxay sameeyaan wax loo yaqaan nerve. soo marka nerve in neuron waxa weyn oo balaaran waa nerveska. Nerveska ayaa wuxuu ka kooban yahay marka bundles of neurons ayuu ka kooban yahay. marka bundle kasta xirmo kastaba waxa ku dahaaran xubub ilaalinaya ama difaacayo. marka waxaa jirto protective covering oo ku dahaaran nerveska ku dahaaran waxaana loo qaybiyaa 3 qaybood. 1 epineurium kuwa loo yaqaano, number 2 perineurium, number 3 endoneurium. Epineuriumka waxaa la yiraahdaa waa xuubka ku dahaaran nerveska weyn ku dahaaran ayaa waxaa loo yaqaanaa epineurium ayaa loo yaqaanaa. marka nerveskani wuxuu ka kooban yahay bundles of neurons, xirmooyin oo neurons oo qaybo u xiran ayuu ka kooban yahay. marka each bundle kasta oo neurons ama fibreska ah xuubka ku dahaaranna waxaa loo yaqaanaa perineurium ayaa loo yaqaanaa. These bundles wuxuu ka kooban yahay fibers ayuu ka kooban yahay. Each individual fiber kastana xuubka ku dahaaran waxaa loo yaqaanaa endoneurium ayaa loo yaqaanaa. marka qaybahaas aan ka soo hadalnay waxay ahaayeen protective covering oo ku dahaaran nerveska iyo waxyaabaha uu nerveska ka kooban yahay ama uu ku dhexdiisa ku jiro sida tusaale ahaan bundles of neurons. bundle of neurons kan wuxuu ka kooban yahay individual axons ayuu ka kooban yahay. soo marka hadda ugu dambeyn waxaan kuu sheegay xuubka weyn ee ku dahaaran nerveska waxaa loo yaqaanaa epineurium. nerveska wuxuu ka kooban yahay bundles of neurons soma. each bundle kasta xirmo kastaba xuubka ku dahaaran waxaa loo yaqaanaa perineurium. xirmo kasta oo bundlekaas xirmadaasi waxaa ku dhex jira soomaan individual fibers ama individual axons ku jira soomaa. axon walbaba xuubka ku dahaaranna waxaa loo yaqaanaa endoneurium ayaa loo yaqaanaa. marka meeshaas waxaan oga hadalnay nerveska iyo xuubabka ku dahaaran. waxaa noo xigi doono cashir kale ku saabsan nerve impulse ayaa noo xigi doono. marka insha Allah qeybaan hadda anaga ka soo hadalnay cashirkii ka horeeyay su'aalahan isweydiiya haddaad ka jawaabto waxa waaye waxaad dareemaysaa inaad cashirka hore soo fahantay. cashirkan su'aalihiisu waxay noqon karaan state types of neurons according to their structure adoo ka fiirinayo. su-aasha labaad waxay tahay state types of neurons according on their structure adoo fiirinayo. su-aasha saddexaad waxay noqon kartaa waxaa sheegtaa protective covering ku dahaaran connective tissueska. marka intaas noo jooga cashirkan.